taageerayaasha iyo madaxda heer gobol iyo heer degme ee xisbiga mucaaradka ee UCID ee gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay kulan ballaaran oo isugu yimaadeen hotel Nasiya ee magaalada Burco waxay kaga hadlayeen khilaafka xisbiga mucaaradka ee UCID xilligani hareeyay iyagoo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in khilaaf soo kala dhexgala xisbigaasi UCID taageerayaashan xisbiga mucaaradka waxay taageero u muujiyeen guddiga filinta ee xisbigaasi UCID oo dhawaan sheegay in xilkii gudoomiye ka xayuubiyeen gudoomiyihii hore ee xisbigaasi UCID Injineer Faysal Cali Waraabe isla markaana ay doorteen hoggaan cusub oo gudoomiye ku meel gaar ah loogu magacaabay mudane Aadan Miro Waqaf mas'uuliyiinta kulankani ka hadashay ayaa waxay ka koobnaayeen gudoomiyaha heer gobol ee garabka haweenka ee xisbiga UCID Marwo Sahra Cali Daahir afayeenka xisbigaasi ee gobolka Togdheer Mukhtaar Aw Cabdi kusimaha gudoomiyaha degmada Xandulle Faarax iyo waliba Abdullaahi Cilmi oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbigaasi UCID iyo gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Togdheer Yaxye Maxamed Jaamac waxa weeyaan waa dimuqraadi xisbi dimuqraadi weeye wuxuu leeyahay dastuur sharci oo ku dhaqmo iyo kala dambeyn buu leeyahay xisbigeena waxay noogu qoray sharciyadiisa waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbigu wuxuu isa soo sharixi karaa 2 jeer oo isu soo sharixi karaa madaxweyne inta kale xilku waa meerto qof waliba xaq buu u leeyahay in la doorto iyo in wax doorto waxaan leeyahay Faysal Cali Waraabe annaga doornay annaguna madaxweynahayagii ahaa maantana annaga bedelay shacabka ayaa waxna bedeli kara waxna diidi kara waxna yeeli kara ma aha inuu qulx qaato oo dadka la dhex galo maanta yiraahdo yaa reer hebelahay aad u nasiib daraa inuu gudoomiye garan kari waayo 2 jeer baad gashay doorasho maxaan ku dhaday sharci wuxuu dhigay 2 jeer doorashada inuu galo gudoomiyuhu mar saddexaadka inuu ka tanaasulo si sharaftu ahayd ee karaamadu ku jirtay inuu xilka isaga wareejo aad iyo aad bayaan rabaa soo nin siyaasi ah isagoo marka hore ku xirmiyay in ummadda hoggaankeeda qabto ummadda hago haddana maanta intuu cidiyo gacmihiisa kula baxo is xigto wax aad looga adgaxo looga naxweeya walaalayaal raggii maxay ahayd xisbiga maxay ahayd lafdhabarta u ahaa maxay ahayd xisbiga maxay ahayd tacabka geliyay way ragga maanta maxay ahayd hoggaanka xisbiga qabtay waana raggii uu lahaa Faysal Cali Waraabe maalintii xisbiga ku soo biiray maanta waxay ka dhigan tahay maalintii Umar bin Khadaab diinta islaamka ku soo biiray ee cisiga iyo sharafta ay heshay ayay cid ka dhigan tahay ayuu maanta Faysal haddana dib u can sharafeeyay wax uga sheegaya arrintaas waxaan leenahay qaranka ma qabato cid gaarna kaama qabato maxay ahayd midnaba ma qabato kulankan ayaa waxa ku soo beegmaya xilli ay kulamo noocan oo kala laga awaabulayo gobolada dalka Soomaaliland kuwaas oo lagu taageerayo guddiga filinta ee xisbigaasi UCID Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi shabakada caalamiga ee Burco Online xafiiska gobolka Togdheer Burco